khilaafka dhanka xadka ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii dowladda Kenya ay xirtay xadka Lamu. Arrinkani ayaa imaanaya maalin kadib markii dowladda dalka Kenya ay joojisay isu socodka gaadiidka iyo shacabka ee degmada Mandera gobolka Waqooyi Bari dalkaasi Kenya iyo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, iyadoona arrinkaasi lagu sababeeyay in laga cabsi qabo falal amni darro. Dowladda dalka Kenya ayaa ku sababaysay xiritaanka xadka in ay tahay mid ay ku ilaalinayso ammaanka waddankeeda, iyadoona ku hanjabtay haddii wax badeeca ah ay kaga yimaadaan dhanka Soomaaliya in ay gubi doonaan ama ay burburin doonaan, isla markaana qofkii lagu qabtay maxkamad la soo istaajin doono. Kenya ayaa horey u xirtay xadka ay wadaagaan magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya iyo sidoo kale degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo, iyadoona halkaasi derbi ay ka bilowday balse shacabka reer Balad Xawe ay ka biyo diideen, isla markaana ay burburiyeen ku dhawaad 2 kiiloomitir oo kamid ah darbigii 7 kiiloomitir ahaa ee ka dhistay dowladda dalka Kenya. Maamulka degmada Balad Xawe ayaa dowladda Kenya la fariistay isla markaana kala hadlay ayagoo soo bandhigay qariirado muujinaya xadka ay Kenya leedahay iyo halka iminka ay dhisanayso, isla markaana ku tilmaamay in arrinkaasi uu yahay boob aan meelna loogu soo gaban. Waxayna sidoo kale maamulka degmada Balad Xawe u soo bandhigeen qariiradahaasi shacabka reer Balad Xawe, ayagoona muujinaya inta ay Kenya u soo gashay gudaha dalka Soomaaliya. Kenya ku ekaato weystihii Ingiriisku halkii uu calaamadiyay. halkaa baa jiif ma gashay iyagu waxay ka bilaabeen waad garanaysaan farqiga labada meelood. jidkan aadaha iyo xuduud bartilmaameed buu noo ahaa soo dhilmanalo. jidkani wuxuu beer soconayaa oo baarala leeyahay xuduud isku inbuu markasta u jira ilaa uu gaaro Balad Amiin. jidkan doolow aada mar walba xuduudda ingiriisku uu sameeyey 700 oo mitir bay u jirta. maalkooda marka loo raaco ismaan hadda ay wadaan aw waka xagee ka soo bilaabeen waxay ka soo bilaabeen ceelka biyaha meesha laga cabo magaalada Balad Xawe, ceelka biyaha beerta ku taalo oo ninka iskala muxuu ahaa magaciisa ya xasan cabdi cali beertiisay ka soo bilaabeen. xasan cabdi cali beertiisay ka soo bilaabeen oo malgaariye wata meeshuu soo maray waa arkaysaa waka xagee mara marka Balad Xawe dhex mara. Dowladda Kenya ayaa ka biyo diiday arrinkaasi, iyadoona dowladda Soomaaliya ka dalbatay in ay magdhow ka siiso darbigii laga burburiyay. Cadaymaha haatan hor yaalla warbaahinta maxalliga iyo tan caalamka ayaa haatan muujinaya in Kenya xagal 45 ay u soo gashay dhulka dalka Soomaaliya, iyadoona la is oran karo in ay ku toosisanaysa arrinkaasi xuduud badeedka ay Kenya sheeganaysa in ay leedahay oo dacwadeeda wajigii koowaad lagaga adkaaday Kenya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo yaqaano ICJ-da. Labada shacab ee ku kala dhaqan labada waddan ayaa kala kulmay caqabado aad u waaweyn xirnaanshaha xadka, iyadoona haatan ay mahadho weyn ku reebtay shacabka reer Kenya maadaama raashinku uga soo gudbi jiray xadkaasi. Shada ayaa haatan kor u sii kacaysa magaalada Mandera, iyadoona iminka haafkii sokorta ay lagu iibsan jiray awal $15 uu sii cagacagaynayo $30. ugu dambeyntii waxaa haatan hakad ku jira dhismaha derbiga, balse waxaa soo taraya hanjabaadda Kenya iyo xirashada maalinba xad kale oo hor leh oo ay la wadaagto Soomaaliya, iyadoona ilaa iyo haatan dowladda Soomaaliyana aysan ka hadal. Cabdikaafi Aadan Maxamed, Cabdikaafi Dalmar, raadiyaha TV-ga Puntland, magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo.